بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا الله سوماليد ميلاد joogtaan ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku ma yeelo cidii dhibandhibka Allah ka qaado, cidii dan la ilaha oo fiye inta baahan Allah deeqo, inta bugta Allah bogsiyo, intii dhimatay Allah u naxariisto, waalidiinteena Allah u naxariistaan, annagana Allah nooga daba naxariisto. dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo badbaadiyo. dawladda Suudaan ayaa wafdi heer sare ah oo hogaaminayo sirdoonka madaxa sirdoonka wadanka Suudaan ayaa waxay u soo dirtay Soomaaliya. waxay wada hadleen dawladda, wax badan baa laga wada hadlay, arrimo badan baa la isdhaafsaday. Ahmed Mufaddal oo dawladda Suudaan ka socday, sida aan xogta ku helnay, wuxuu waday xog iyo akhbaar ku saabsan Soomaaliya inay qayb ka tahay dagaalka ka dhacay Suudaan oo ay wado Imaaraadku. waxaan ognahay oo kale dawladda Soomaaliya inay si public ah oo calan ah ay u taageertay dawladda Suudaan guushii ay kaga guuleysatay dacmu sariic, ninkii Doqlo oo ay wateen oo amiilka u ahaa daba dhilifkii ay wateen Imaaraadku. waxaan hore u sheegnay marar badan Imaaraadku inay cadow ku yihiin iyo col ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan guud ahaan wadamada muslimiinta oo dhan, xataa Falastiin ay col ku yihiin iyo cadow. waxaan sheegay hadda ka hor dhalinyaro Soomaaliya oo laga qortay ciidan ahaan laga qortay Puntland in laga dajiyay dalka Suudaan oo ay halka ka dagaal galeen. waxaan soo sheegnay oo cadaynay dhowr 3 cunug oo kamid ahaa oo dhintay. waxaa la xaqiijiyay qaar kamid ah dhalinyaradii in gacanta lagu dhigay oo iyagoo maxaabiis lagu hayo area Darfur. nimanka yimi Suudaan ah maadaama Soomaaliya ay fadhido Security Council-ka codkeedu aad buu muhiim ugu yahay cid kasta. Suudaantu waxay u timi maadaama ay yihiin dal walaala oo Soomaali, xataa markii ay burburtay dadka Soomaaliyeed dawladaha ay ka dhiman waayeen ay Suudaantu kow ka tahay, oo kumanaan kun oo qof oo jaamacada kaga soo baxay dalka Suudaan ay hadeer dawladdeena Soomaaliya tan xamar joogta oo Xasan Sheekh xooggeeda nimanka madaxda ka wasiirada ka in badan oo kamid ay ka soo baxeen jaamacadahooda. dal aad iyo aad walaal u ah, waxtar badan, dadka dhaqaaleyn jiray Soomaalida ah, garab taagna, xataa waa dalka kaliya ee ilaa iyo hadeer intii dawladdu burburtay lacag u daabacay, lacagtoodina ay bakhaarada ku baabaaday, maalin dhaweyd waa la bilqaystaa liyiri. waxaan sheegay marka Soomaaliya qayb kamid ah oo ah labada gobol oo dariska ah oo ah Puntland iyo Somaliland, nimanka madaxda ka ah, gaar ahaan dawladda Puntland madaxeeda Saciid Cabdullaahi Dani, in uu yahay token nin ay iska leeyihiin Imaaraadku, hadalna aan ku celin karin, waxna aan ku diidi karin, talada iyo afkaarta ay wataanna ku khasban inuu iska taageero. waxaan sheegnay inay ka dhisteen base, inay ka dhisteen. hadda ka hor baan idin tusay basekaas oo la qarinayay oo aan la ogolayn in la arko, baanu satellite-ka sawiradiisa ka soo helnay. waxaan idin tusnay diyaarado laba ah oo si joogto ah, diyaarado waaweyn oo ciidan ah oo si joogto baabuur iyo taraagyo iyo ay galayaan oo si joogto uga dega basekaas, dhinaca Imaaraad ka yimaada, halkaa ka dega, kadibna u duula dhanka iyo Suudaan iyo Maali, marar badan iyo Jaad. marar badan baan idin sheegnay sawiradoodina aad aragteen. waxaan idin sheegnay dad aad u tiro badan oo ah calooshoodu shaqaystayaal laga keenay Colombia in laga soo dejiyo Boosaaso. diyaaradda Ethiopia ka soo raacaan Addis Ababa, caalamka laga keenaa Addis Ababa ka degaan, Addis Ababa laga raraa, diyaarad baa laga saaraa, Boosaasay ka degaan, Boosaaso basekaa la geeyaa. basekaas qof Soomaaliya ma geli karo, including madaxweynaha. dad baa waxay ku leeyihiin madaxweynahaad neceb tahay, madaxweynahaad jeceshahay. war waxaan jacayl iyo nacayb midna maaha, dalkaan naga dhexeeya madaxweynaha. inaan nabcahay iyo inaan jeclahay macnaheedu maaha waxaan jirin inaan ka sheegayno. haddii wuxuu ay jiraanna dee xataa haddaan jeclahay macna kuma fadhido inaan qariyo, mana qarin karo haddaan damiir leeyahay. dalkaan ka jeclahay isaga, si kastoon isaga u jeclahay, waddankan ka jeclahay, maxaa yeelay waddankaa baaqiya, dadkuna wada leeyahay.
dhibka soo gaarayaana wayna soo wada gaaraya waxaan marar badan sheegnay in macdan iyo dahab iyo alaab aad u tiro badan oo khayraad ah laga gurto Puntland iyo Somaliland meelaha iska soo galaan oo badana calmadow inay ka gurtaan waana sababta keentay imaaraadku inuu ka dagaalamo inay laas qoray raacdo gobolka cusub ee waqooyi bari waxaan isleeyahay badbaado u tahay Soomaali magaaladaas inay raacdo maamulka ay raacdo Soomaali bay badbaado u tahay imaaraadka waxay ku tahay dhabarjab waxa la sheegayaa inay yani keensadeen qalab aad u tiro badan oo ay ku gurtaan hantida ummadda Soomaaliyeed ee halka taala hadda wafdigaas ay yimi wafdigaas wuxuu u socday taageeradii ay dawladda Soomaaliya muujisay oo banaanka ka sheegtay inay sii durugsato oo Soomaalida ay ka sii qalqaalsato dacwadda ay rabtay inay ka keento imaaraad inay la galaan oo qayb kala noqdaan dacwadda waxa qayb ka noqonaysa Soomaaliya inay qayb ka mid ah faragelin toos ah ku hayso dawladda imaaraadku madaxweynaha Muqdisho fadhiya ee ah ganacsade Xasan Sheekh Maxamuud waa ganacsade horey baan u sheegay security councilka oo laga soo shaqeynayay muddo ka badan 5 sano inuu lacagaysan doono markii ay Soomaaliya iyo Suudaan kulmeen oo ka wada hadleen xiriirkooda iyo waxa ay damacsan yihiin markiiba waxa degdeg ku yimi wafdi ka socda imaaraadka oo uu hogaaminayo wasiir dawladda arrimaha dibadda Sheekh Boud Al Nahyan Sheekh Boud wuxuu yimi waa naqaan madaxweynuhuna shaqadiisii uu ku fiicnaa oo ahayd ganacsiga ayuu meeshaas waxay la tahay marsanaya wixii uu ku fiicnaa oo ahayd ganacsiga ayaa u soo baxday lacag bay wadaan inay ka dalbadaan Soomaaliya inaysan hawsha qayb ka noqon bay wadaan inay Suudaan iyo Soomaaliya kala fogeeyaan bay wadaan horey waxaan idinku sheegay xamar Muqdisho in laga xukumo hawada Soomaaliya oo dhan waxa la wixii diyaarado ka daga Puntland ama ka daga Somaliland ama ka daga Jubbaland ama ka daga maxaan ku yiraahdaa Galmudug ama waqooyi bari ama koonfur galbeed meel kasta oo Soomaaliya kamid ah ka daga Muqdisho ayaa laga siiyaa ogolaanshaha degista iyo kicista inay ka kacaan labadan khadka ay marayaan waxa uu cayima laanta duulista hawada ee Soomaaliyeed sidaa darteed Xasan dood uu keensan karo oo uu ku doodi karo ama cid uu ka dhaadhicin karo shuqul kumalihi faragelinta tooska ah ma jirto cid uu ku qancin kara ma jirto oo warkiisa yeelaysa imaaraadku wuxuu kuma degi karo hawadeena nama soo gali karo haddii ay arinta hal diyaarad ku xadgudubto oo diyaaradaas penalty ay saarto laanta iyata ay saarto magaraysa ganaax ay saarto waxa dhacaysa diyaaradaha imaaraadka oo dhan in la mamnuuco caalamka oo dhan inay ka degaan penalty weyn uu ku dhaco xukuma xadgudbi karto waa sovereignty madax banaani wadan weey ogolaanshaha marka cid ay ka haysataa waa filla Soomaaliya ma aha dani oo kaliya cidda arintan ku ceebaysan ama ku fashilan inay imaaraadku iska dhuluq dhaaluqaan oo iska maamushaan labada dekedood isaga u saxiixay labadaba isaga u saxiixay waxa ka mid ah heshiisyada loo saxiixay oo ay ogolaatay filla Soomaaliya Xasan ay ogolaatay in la qoray baatiriye 400 kilomitir labada dekedood aan midna loo soo jirsan karin Tambarbara iyo Tamboosaasa midna aan loo soo jirsan karin sababtaas ana keenaysa inay ka dagaalamaan laas qoray inay raacdo waxa kale oo raacaya laas qoray markay raacdo gobolka waqooyi bari cusub almadow oo dhan baa raacaysa meelaha majiyahan iyo meelaha lagu dagaalamayo oo ay nimankaanu boobayaan hantida ummadda Soomaaliyeed la boobayo dhan baa kulligeed soo galaysa khayraad ay leedahay gobolada waqooyi bari ee Soomaaliya wafdiga marka Sheekh Boud wuxuu u yimi inuu carqaladeeyo oo carqiyo oo tirtiro raadkii dawladda Suudaan ay kaga tagtay Muqdisho arintaasina waa nasiib daro waa fadeexad waa arintii aan horay marar badan uga hadlay siyaasadda arrimaha dibaddu waa key policy oo la rabo madaxweynuhu inuu ilaaliyo waa inay dalka dignity-giisa iyo sharaftiisu ka muuqataa waxa ceeba dal arrimihiisa dibaddu ay yihiin waxaan la aqoon ay yihiin for sale iyo ganacsi ay yihiin mid cid
alla cid ixtiraamaysa aysan jirin dalku waa arrimaha dibadda hadday dowladdu ka dhimatana meel kastoo kalena way ka dhimataa sharafta iyo karaamada ummadda waxaa laga arkaa mawaaqifteeda iyo go'aanadeeda iyo magaranaysaa ajandayaasheeda arrimaha dibadda ah ayaa laga arkaa waddan dignitigiisa iyo sharaftiisa madax bannaanidaada waxaa icraaba oo bannaanka u soo saara waa go'aamada iyo siyaasadaha aad ka qaadatid arrimaha dibadda arrimo dibadeed oo carsaanyada sideedii carsaanyadu waa bahal badda ku jira bannaankana ku noolaada oo afarta dhinacba luga ku leh marna xagga u orda marna xagga u orda marna xagga u orda marna xagga u orda carsaanyo inaa noqotid oo la garan waayo meelaa u socotid iyo meelaa ka socotid waa nasiib xumo waxay tustaa qofkaa shakhsiga ah ee madaxweynaha dalka ka ahi inuusan ahayn qof dowladeed dowladnimona wax ka yaqaan raba diyaar u ah xataa qofku hadduusan waxa aqoon wuxuu hayargarayn karaa oo shaqaalaysiisan karaa dad wax garanaya waxaan la garanayn wiilal aan la garanayn oo siyaasad aan lagu aqoon oo aan lagu aqoon arrimo dibadeed oo aan waxba ka garanayn oo aqoon aan lagu garanayn iyo magaranaysaa dad aan la garanayn baa go-aana ka gaaray ciyaalaa go-aan ka gaaraya ordaya oo qaarkood alcoholic wada yihiin iyo magaranaysaa dad aan yani kulligood compromised ah qofku haddii uu cillad leeyahay oo ama lacagta jecel yahay ama uu balwad leeyahay qofkaasi waa compromised khatar buu ku yahay dalka uu matalaya arrimaha dibadda marka haddii la ogaado qofku inuu weakness leeyahay waa in lagu kabaa oo ay daba socotaa awood culus oo waardiyeyso isaga ilaalisa oo ka ilaalisa waxyaabaha noocaas oo kale marka safarkaasi safar foolxumo ah buu ahaa aalan hayaan u yimi dowladda soomaaliya inay isu dhiibtana ma ahayn waana ka xunnahay haddii ay u shaqaysay waxay u yimaadeen kiish lacagana ay la yimaadeen waxay rabeenna ay gateen nasiib darro ummadda ku dhacday waase ka baxaynaa biidni illahi tacaala inahaasaan odhanaya billahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi